haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh. ninkii dab ku gubtaa baa dambastiisana ka carara. beri baa nin iyo xaaskiisa degnaa dhul howda oo cidlaah oo reero kale aynay kaag dhoweyn. reerka waxa ay lahaayeen xoolo oo ay lo iyo ari isugu jiraan oo ay dhaqdaan. wixii la joogaba baa xoolihii ay dhaqanayeen libaax ka bartay. libaaxa wuxuu habeen walba u soo dhici jiray oo neef kala bixi jiray xerada xoolaha. galabtii dambe baa ninkii iyo xaaskiisa oo Caasho magaceedu ahaa waxa ay ku tashadeen in dhinaca libaaxu xerada ugu soo dhaco, inay god ama bohol hoos u dheer ay ka qodaan si uu libaaxu ugu dhaco. orax dhicii gooray tahay ayay meeshii uu libaaxu xerada ugu soo dhici jiray god dheer ka qodeen, afkana xaabo ka saareen. saqdii dhexe baa libaaxii oo guuraynaya wuxuu isku dayay inuu sidii caadadu ahaydba xerada u dhaco oo neef kala baxo. hase yeeshee xaawadii baa la duntay oo godkii ayuu dhexda ugu dhacay. waagii markii uu baryay oo oraxdii soo baxday ayuu ninkii wuxuu ogaaday in libaaxii uu godka ku dhacay xalay kana bixi waayey. markaasuu isa soo dul taagay oo yidhi, caashooy, biyo dabka ii saar, markay si fiican u karkaraan oo ay kululaadaan ii keen aan libaaxa ku gubee. caasho ayaa iyadoo amarkii saygeeda fulinaysa ayay durbadiiba dhari weyn oo biyo ah dabka saartay. marka ay aad u kululaadeen biyihii bay inta soo qaaday u keentay. intuu markiiba biyihii kululaa libaaxii dusha ugu shubay ayuu mar kale yidhi, caashooy, biyo kaloo karkarsan ii keen. sidii bay samaysay. markaasuu haddana ku shubay libaaxii biyihii kululaa. markii libaaxii 5 mar biyo kulul dusha loogu shubay, welina ninkii uu baaquli lixaad dalbaday asagoo leh, caashooy, biyo karkarsan ii keen, ayaa libaaxii oo diirdiiran godkii tuuryo ugu baxay, bannaankana u cararay. libaaxii markuu kaymihii aalaabba uu maalinta ku maadan jiray dhex galay ayaa waxaa diirdiirnaantiisa iyo dhaawaca ku yaalba la yaabay asxaabtiisii libaaxyada ahaa. waxayna weydiiyeen sida wax u dhaceen. wuxuu ugu jawaabay, nin naag Caasho la yidhaahdo qaba oo halkaa deggan baa sidaan ii galay. dhammaan libaaxyadii goobta joogay baa arrintaa ka xumaaday, waxayna go'aan ku gaareen inay saaxiibkood u aaraan oo ay Caasho iyo ninkeeda barqadii weerar dhan walba ah ku qaadaan. Caasho oo safar gaaban ku maqan balse ninkeedu uu aqalka afkiisa hore taagan yahay ayay libaaxyadii oo weerar ah dhan kasta ka soo galeen. markuu arkay libaaxyadii oo ku soo wajahan ayuu naftiisa u baqay. inta durbadiiba cagaha wax ka dayay ayuu geed dheer oo aqalka agagaarihiisa ku yiilay fuulay, ileen naf baa wadee. libaaxyadii baa geedkii uu ninka saarnaa soo hoos istaagay, waxayna durbadiiba isku raaceen in maadaama geedku dheer yahay in uu midba mid kor fuulo si ninka loo soo qabto. libaaxyadii baa iskor fuulay, waxaana midka ugu hooseeya laga dhigay kii ay Caasho iyo ninkeedu ay gubeen kadib markii uu isagu sidaa codsaday. markii ay libaaxdii ugu koraysay ninkii u dhowaatay gacantana ku dhigi rabto ayuu ninkii wuxuu cod dheer ku yidhi, caashooy, biyo karkarsan ii keen, la soo orod. kii ugu hooseeyey oo ahaa midkii horey u gubtay welina xanfafkii dareemaya ayaa codkaa maqlay. wuxuu is yidhi, malaha waa barun oo biyo karkarsan ayaa meesha yaal, mar labaad ayaana lagu gubi rabaa. mar qura ayuu ka hoos baxay asxaabtii ka koraysay, meeshana isaga cararay. hase yeeshee kuwii ka koreeyey ayaa soo daatay oo mid jaban iyo mid jiisa noqday oo meeshii ku baaba'ay. sidaas ayaana weerarkii ku fashilmay
ninkiina ku badbaaday. haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh